الحمد لله رب العالمين أحمده أبلغ حمد وأثنيته أعلى ثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع صحابته الأوفياء البررة الكرام وعلى أهل بيته وبعد. شركا أيها الحفل العظيم والجمع الغفير جماعات كان أما حفلة لإسقو يمد والله قهد لها أيوه أمور قف والبكوت هابتي جريسة وأرن هذا مهمسا وحن دريما يا إن لإسقو يمدين لقاه الله الخوارج. ماهية الخوارج سيداد أكسونتهين وانسوكو بيا إن شاء الله خوارجتو سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وحوقه الله سياد أبيانسان لنعيك لدونا وكتابتي فرقدي كوباد والله قد لمنا وحيد عضي وحالة در سيدنا علي دبدنا إلى حلقة إلى حد ما ينبابين وليود إن الشوك أهان وير بابان والغيابا لكن فكريا ومزورين إيجا إنك حلقة نشوفنو wadaadadii kala duwanaa oo dhan way mideeyeen meel bay isugu keeneen maanta dhammaantood nin walbo toog bay ku xukumeen dabadeedna wadaadadii oo hal safa ah iyo ayagii oo saf ah baa meesha yimid waxaan rabaa inaan taabto insha Allah laba qodob qodobka koobaad waxa weeye khawaarijta la yaqaanay diintu inoo sheegtay ee sifaadkeeda la yaqaano oo nabigu dhan walba ka tilmaamay ee xilligii salafu saalix soo baxday khawaarijtan maanta joogto way ka daran yihiin sababta uga daran yihiin khawaarijtaasi mabaadida usuushooda la yaqaanay bay tadayun ku lahaayeen oo ay ku dhowrsanaayeen ma aynan ogolayn xagga inay u baydhaan laakiin kuwan maanta joogo waa fasahaad iyo damaar caam ah weeye wax la badbaadiyay ma jiro aryaha la laayaa baraagaha la sumeeyaa dadka birmageydada ee dumarka iyo odayaasha tabarta yar ayaa la laayaa nabigeena suuban salawaatullaahi wa salaamuhu calayhi iyo sidiiqul ummah Abu Bakar radiyallahu anhu wa ardaahu laba dardaaran oo isku dhow oo jeediyeen isku waxba ku qornaa suubanaha markuu wafaadayay وساتم بن زيد عيدن كو ديبay warqad dhanbaala buu u raaciyay kayfiyada uu la dirirahayo kolku Romaaniya hortago ee muuta uu tago markuu Mustafuhu wafaadayna sayyidina sidiiqul umma asaguna dardaaran buu siiyay Usaama ibn Zayd erayga orgadan leh waxa kamida odayaasha iyo haweenka iyo caruurta Usaama wahadirin illa muqaatilada kula dirirta mooyeen erayga orgadan leh حتى nimankii lala dagaalamahayay ee gaalada ahaa ee Roomaanka ahaa dadka birmageydada afaraha laga qaaday ilaa muqaatilka xoog leh diriirahaya mooyeen innagii oo muslima baa ducafadeeni la leynaya marka waxay la dheer yihiin khawaarijtii hore in xadgudub bay la dheer yihiin waa khawaarijtii hore oo hadana aakhiru zaman joogto fitantii zamankana ay wehelisa weey marka taasi waxaan oran lahaa waa fasahaad ay diinta ka digto waxaan uga noqonayaa marka khawaarij laga digahayo fasahaad baa laga digayaa diinku maqaasida ilaalisa waxa kamida al fasahaad inaan la ogolayn deedna markuu nabigu khawaarijta ka digay aad maqlayso waa fasahaad maxay fasahaad ku yihiin ad-diin wal cibaada wal bilad الثلاثه waxay ku yihiin damaar caama iyo fasahaad caama dabadeedna maadaama ay ka suuroobi karin xataa in la qanciyo markay duruuftii awoodu timaado in la wiiqan mooyeene nabigeena istisaal buu ku cabiray salguuri istisaal waxa la yiraahdaa geedka hadii jirida laga jaro oo roob ku da'o wuu soo fufaa laakiin hadii xiidaha loo bixiyo ma soo fufi karo nabigu marka wuxuu yiri waan salguurin lahaa istisaal baan ku sameyn lahaa nusuusta ku soo aroortay markii la eegay axaadiita كتاب الفتن بالغو سو غوريا كتبتنا امهات ستها
الإمام البخاري رحمة الله عليه ورضوان الله عليه كتاب كيس البخاري ملحدين تباب كذا كحجسي خوارج تباب كذا الحاد كه أي ماذا إنه مركا غار قال بيكوش يجان حكم كذا غارنا وحيكوش يجان بقاد حد جذبتين يهين قارنا بكتوقفين وحيابا بدن با كسو أروري مركز الله كسو أروريو إلهي القرآن كيس وحكولة يهي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ديجان لو ناجيها فسهادين فسهادك الله ما قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ذاتك قارن إفساد بيوضان قارن وركدا بيليهين أيوه مركا إلهي نبي يسوي كل بريء إنه فسهاد وضان قلبك الله بعد نوجد بوحوي الخوارج بنان إسكتاجن متشرو نبي إن مركو كهل هينا مبادئ دين وآمن سيهين بوشاجي لأن الدجال كلا رجل الشخص يقري وتوحى كهر إن منهج كلا دريرو حدي أنت قريها ولا طلع لما منهج كبا مرة صوت فهايو وحي تفجري dabadeedna waxaa meesha yaala tuubo qasabad furan oo biyihii fatahayso ma biyihii baa la masiximsa marka hore qasabada la xidhaa waa in qasabada la xidho kadibna biyihii la qalajiyo waa in nidaamka lagu darsado afkaartooda waxan keentay in laga zuuliyo deegaanka wadanka afkaartii iyo mabaadida ay aaminsan yihiin qalloocsanay diinta u fahmeen qalloocaasi waa in la cadeeyo inayna manhaj diin ahayn hadana la cadeeyo برنين كودنا لتشوجيو وفسر خلدنا يساران القرآن والحديث الكتاب والسنة فسر كقلع سر اللي يقاني خوارج لا هنا وإن لقوا دار جوجنته صفة في دي سوي استكتوي حدانا جوجنتي سيل باجنين واحد ذاكر ما تشرو أنت أصبح حدير وكلته وأنا أيضا إن شاء الله أنهي بكلامي أن كسو جبين يا دولته أما علماء أما الشعب كأو ولا تشرو مرمنا إن النبض هلو ومبرواقه هلو أفكار تنوع عاسه قلبا الفكر الخوارج والروافد إن اسكو شرأه لبضوا بالله كنسلو سببته أول لبضا فكري أساس كودو أصو الضلال اللوران كروي مبادئ أي كل سيهين هي أساسيات كودو هي انطلاق كودو وفكر أدو قلع سنوي لبضوا dabadeedna mabaadida noocaasa waa in manhajiyada lagu daro in ay joogsato oo bir qaadica ah lagu jaro weey hadaba dawladdu gulufkan iminka ay bilowday ee ku wajahan nimankaasi duurka ka dagaalamo laftiisu waxay u baahan yihiin tala bixin in laga siiyo oo culimada ku xidhnaata dawladdu oo taladii loola diiri lahaa ay ka siiyaan tala bixintii iyo actionkii waxyaalo badan oo waxaan dareemaynaa aan saxnayn waxa aan saxnayn marka laguma cabiri karo kalimaad yar oo qof la siiyay laguma soo koobi karo waa inay culimada iyo dawladdu ay shaxyo badan kala qaataan weey hadaba biqtitaami culimadu dhamaantiin diinka iyo dadka u tura وردينك وإنه فيلين كتابك القرآن كهابا إنه يالله سنة ظاهرة هيدا مجمعة هيدا باتالله أصحابتي صوبانيدي السلف كيف فسر كوديبا يالله وحل اسكو خلافة هلقو حليو بأسلوب حسن عنفي وحمترو لا اسمك جبين كرو إلى حلقي بربهاري أي توجين يا أبي الحسن الأشعري إلى حدا علم كلامك حلو بالله واسعداون وحل اسجب جبين كرم متشرو إلى حلقان أفكارته وينتاجن تاون كل بس أي نقطة دبادنا أنت لله اللي جن نقطة مسألة مرك اللي جوده الله هي يوم فرقة لو دودين وجه إلهي بعد استاجد دون تاني فرقة أنت إسكت إنسان كتابك إلهي سنة ده نيم لله أقاطه أو حق يصح سيدي علماء ها جوده الله أنا جروبيسيا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست من في شيء من الله جل وعلا كو الدين كوكلا فرقوبي كلا دين النبي وعدو كمد متهد الفرقة في الدين لما أقره وحدة الإسلام توحيدك هو واحد إلهي هو واحد نبي هو واحد سيدان بالله هذا إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه يوم هسين هاي